kulanti wacan asxaabay kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay bal waxaan eegi doonaa waxyaabaha wargeysyada caalamku ay ka qoreen saxada kubadda cagta bilowga koobka adduunka caawa si xoogan ayaa lagu dareemiyay caasimadda Qatar ee Doha bal waxaan eegi doonaa Benzema oo dhaawac cusub oo isla maanta tababarkii ugu dambeeyay fiidka uu la kulmay isagoo dhaawac hore kasoo laabtay haddana dhaawac kale ayuu la kulmay runtii waxaana halis la gelinayaaba inuu koobka adduunka ciyaari karo sidoo kale waxaa la shaaciyay in kulamo uu seegayo sidoo kale wadanka Qatar oo koobka adduunka ee sanadkan lagu qabanayo uga faa'iideysanaya faafinta diinta islaamka sidoo kale bal waxaan eegi doonaa saaxiibayaal taariikhda qarsoon ee Gabriel Martinelli ma ogtahay in Barcelona iyo Manchester United ninkan ku soo fashilmay kadibna uu Arsenal ku soo baxay bal waxaan eegi doonaa saaxiibayaal wararka kale soo baxay iyo waxyaabaha wargeysyadu ay qoriyaan muuqaalkeena inta bilaabin saaxiibayaal like saara sina share gareeysa asxaab badan ay u gaadho haddii ay tahay markii ugu horeysay ama soo booqatana fadlan rukumo oo kambalelkana fursad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaqa suuqa kaliibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdaada mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal runtii caawa in caasimadda Qatar ee Doha dhaqaaqyo xoogan ayaa laga dareemay runtii waxa la dareemay in maalinka bariya uu furmayo koobka adduunka walaga aad ayaa lagu dareemay caawa in caasimadda Doha runtii kubadunida waxaanu ka soo baranay kuwii horeba in taariikhda duwan galiyo waxyaabo qariib ah aragno waxyaabo yaab leh la duwan galiyo baladina koobkii ugu dambeeyay runtii koobkii 2014 wuxuu qaadayo xulka Germany waxa laga duwan galiyay in Brazil lagu dhufto 7-1 Brazil loogu barno ah kooxda xulka ugu badan ee koobka ugu badan ku guuleystay oo 5 haysta in 7 lagu dhufto yaab ay noqotay iyaguna hal gool ay dhaliyaan oo goolka calanka uu dhaliyay xidigooda Oscar waliba daqiiqadii 9aad oo goolka uu dhaliyay runtii sidoo kale waxa jira in laga duwan galiyay koobka goolka uu dhalinay Van Persie goolka yaabka lahaa ee madaxa isla tuuray goolkaas yaab leh sidoo kale goolkii 9 laga carreeyay kooxda xulka Argentina ee Mario Götze uu ka dhalinay ee ku qaadeen Germany isagoo goolkii Iniesta uu Netherlands isaguna wadnaha ku jaray waxyaabo badan ayaa laga duwan galiyay doorkana waxaan filanaa runtii waxyaabo kale la duwan galin doono oo runtii dhacdooyinkan uga baranay koobkii hore oo kale dhacdooyin la mid ah sanadkan la duwan galiyo waxaan arkayay mar dhaweyd in labada good Messi iyo Cristiano oo barahooda bulshada waliba gaar ahaan bartooda Instagram ka soo dhigay sawirkan runtii sawirkan oo u muuqda in waxyaabo fara badan oo faafinayo ilaa sanadkan waa sanadkii ugu dambeeyay ee ku dagaalamino guusheeda ugu weyn runtii labadooda waxaan ka warqabnaa in mid labadooda dhinac buu yahay koobkii ugu dambeeyay ciyaarayaan wixii ka dambeeya sanadkan labadani ciyaartii waa weynaadeen oo lagama yaabo inay si ciyaari doonaan koob adduunka labadooda dhinac waxay shaaciyeen in koobkan yahay koobkii ugu dambeeyay sawirkan ay labadooduba oo Messi oo Instagram ka soo dhigay Cristiano Instagram ka soo dhigeen runtii waxay badan ba loo fahmayaa in sanadkan ay ku dagaalamayaan koob adduunka oo koobkan yahay koodii ugu dambeeyay kii ku guuleysta in runtii ay guul weyn ayu tahay runtii iyaduna PSG sanadkan weerarkoodu waxay u socdaan koob adduunka oo saddexdoodu waxay rajo weyn ka qabaan inay ku guuleysanayaan oo wali waxay ka socdaan xulka uga cadaad Argentina sanadkan aad ayaa lagu saadaalinayaa in Brazil iyana ka daran sanadkan laftigeeda aad ayaa lagu saadaalinayaa inay ku guuleysan karto France laftigiisa waxa la saadaalinayaa in mar labaad oo xiriir cusub uu qaadi karo waayo awoodiisa iyo runtii awoodda qarankan ayaa la eegayaa waa macquul in weerarka PSG midkood oo sanadkani koobka adduunka uu soo qaadi karo waa macquul labadooda saddexdooda si mid uu qaadi karo Benzema ayaa dhaawac cusub soo gaaray caaw waliba fiidkii tababarkii xulka Faransiiska uu qaadinayay isugu sii diyaarinayeen kulankooda koobaad iyadoo waliba Bruno uu bilaamayo koobka adduunka waxaana meesha ka baxaysa filashadiisa iyo waliba xogayahay saxaafadda Faransiiska soo gudbinayeen markii uu laacibkani galabta si buuxda in runtii ugu soo laabtay tababarka si buuxda ay galabta tababarka ugu soo laabtay oo filashada hore ahayd waa seegaya in lama qabin laakiin dhaawacan kale soo gaaray waliba isla maanta tababarkan ku soo gaaray kan ayaa walaac weyn si muujinaya Benzema runtii saacadaha soo aadan waliba waxa la warinayaa in iskaan la marin doono oo natiijadiisa runtii la sheegi doono waryahankan uu ciyaari doono amaba uu seegi doono koobka adduunka waliba aad ayaa lagu badnayaa dhaawacan galabta soo gaaray inuu yahay kii uu ku seegay gabi ahaanba runtii Karim Benzema in ciyaari maayo sidoo kale waxa la xaqiijinaa inuu ciyaareen kulanka in Australia waxaana in khatar ugu jira ninkan xitaa koob adduunka uu seegay kulanka Australia
isla sida ay leeyihiin ninkan ciyaari maayo oo waa la xaqiijiyey dhaawac baa soo gaaray ninkan dhaawacyayaa wareerinayaba tababarkii kan ka horreeyay waa soo gaaray kanna waa kaa soo gaaray Real Madrid waxay ka haysteen wanoogay sidii Benzema Ballon d'Or ugu guuleystayba xaalkiisu caadi ma aha ninkan runtii saxaafadda Spain gaar ahaan Valencia ayaa si toos ah u weeraraysa tababaraha xulkan Spain Luis Enrique kadib markii Jose Gaya uu ka soo saaray qaranka oo ku bedelay Alejandro Baldi ninkan baasha bidix ee kooxdan Barca ayuu ku bedelay runtii Julio Inza oo ahaa saxafi taageero kooxda Valencia ee waxa ku tilmaamay Enrique inuu doqon yahay waxa uu leeyahay waayo dhaawaca Gaya soo gaaray mu ahayn mid halis ah oo ku maqnaan karo koobka adduunka oo dhan mid ku maqnaan kara ma ahayn waxa uu leeyahay sidoo kale waxa la filayo inuu diyaar u noqon karo kulanka labaad ee guriyada kulanka koowaad uu sheekay labaad diyaar u noqon kariye muhaysan buu leeyahay fursad uu uga saara oo Baldi ugu yeero markaasi Valencia waa ka cadhootay waliba taageerayaashooda waxa leeyihiin ninkan sababta looga saaray waa bareer cad oo Baldi la doonayay waliba kooxda Barca ninkan Luis Enrique aad ay loo cambaarinaya aad ay runtii in loo cambaarinaya sidoo kale waxa soo baxaya wadanka Qatar oo runtii sanadkani lagu qabanayo koobka adduunka waxyaabo aan inta badan qariib ahaa oo aan koob adduunyadii hore ka soo dhicin ayaa runtii laga yaabaa in maalinka Brian aragno runtii waxa la shaacinayaa in kulanka koobaad ee furitaanka Ecuador iyo Qatar lagu furi doono ayada Quraan Kariimka sidoo kale waxaynu ogeyn khamrigii oo la joojiyay FIFA isku day ugu dambeeyay sameynayay oo mardhow la soo saaray oo lagu diiday in koob adduunka walisla wadanka waliba khamri lagu iibiyo waxa la soo sheegayaa da'yar runtii ku furi doona Pretoria ayada Quraan Kariimka ee loo yaqaano Qanim al-Miftah runtii ninkan waxa weeye waa xafid Quraan runtii da'yar waxaana weeye Qanim waa wiil kamid ah dadka baahida gaarka qaba runtii wana xafidul Quraan walibana cod macaan ninkan ayaa la filayaa wiilkan yar inuu Pretoria ku furi doono ayada Quraan Kariimka sidoo kale Qatar ayaa waxa u yeedhay isla markaana ay ku casuumtay daaciga ugu weyn caalamka ee Dr. Zakir Naik si uu muxaadarooyin diini ah ugu jeediyo dalxiisayaasha inta lagu guda jiro koobka adduunka runtii waxay bilaabeen Qatar faafinta diinta Islaamka inay uga faa'iideystaan waana arrin aad u fiican in fursadan kale looga faa'iideysto wakaasi Zakir Naikna waa jooga in kumanaan gaala oo Pretoria ku sugan garoonka lagu qaban doono lagu furi doono koobka adduunka runtiina ayada Quraanka ayaa laga akhri doonaa sidoo kale runtii waxa inta badan qariib ku noqotay dadkan ku sugan dalxiisayaasha runtii eedaanka waxa jira dad badan oo anagtoo laga eedaamin oo sanadkani eedaan maqlaya runtii dad badan baa qariib lahayd oo sheegaya qaarkood in codkan yahay codkii ugu macaanaa weligood ay maqlaan sababta hore ugu maqli waan ay la yaaban yihiin waqti qadarna waxay bilowdayba in faafinta diinta ay bilowdo oo dadka Dr. Zakir Naik daaciga ugu weyn oo dadka uu diinta u baro oo muxaadarooyin diiniya halkaas uga jeediyo bal waxaan eegi doonaa Gabriel Martinelli runtii ninkan Gabriel Martinelli waxa jirtay taariikhdiisa hore horta kooxda Arsenal ayaa sanadkii 2009 6 milyan ay ku siibsatay laakiin waxa ka horeysay in Barcelona iyo Manchester United ba Gabriel Martinelli oo la qaato tababar oo akademiyada Man United uu joogay sanadkii 2017 ba oo halkaas uu kala kulmay ciyaartoyda Ibrahimovic iyo waliba Pogba laakiin waa laga soo deeriyay oo laga soo cari kadib markii baaritaano fara badan lagu sameeyay ninkan lagu qancin qaab ciyaareedkiisa sidoo kale Barca ayuu kale calaamtiin la soo qaatay sidoo kale Barca waxa uu joogay muddo 15 cishaaba 15 maalmood ayuu Barcelona u ku sugnaa waxaan halkaas uu kula qaatay daa'irada kooxdani Barcelona sidoo kale Fati ay waqti ku soo qaatay 15 cisho ay soo wada joogeen oo Lamezia ayuu ninkani buu aaday sidoo kale hadan sanadkii 2019 ay kooxda Arsenal kooxda heerka afaraad ee Brazil ee Tuano ay ka soo iibsatay waxaanay ka soo bixisay 6 milyan wakaasi imika fursadda Arsenal markii oo sanadkani uu fursad dhameystiran u siiyay Arteta oo ka faa'iideystay 5 gool oo dhaliyay iyo 6 gool xilli ciyaareedkan Everton kulna Arsenal ciyaartii uu sameeyay waxay sababtay in sanadkan looga yeero xulkiisa Brazil oo markiisii ugu horeysay uu matiro runtii markiisii horeysay matiri doonaa taariikhdiisana wakaasi Barca iyo Man United boys ka soo cayriyeen Arsenal fursadiisa waka xulkiisa Brazil ay sanadkani nasiib yeeshay oo ninkan daadiyay oo matiro Manchester United ayaa waxa leeyahay bedelka Ronaldo
ay suuqa u galeen waxay raadinayaan bedelka ninkani oo awrkiisa Ronaldo la ceyrinayo waa la ceyrinayaa kale iskuma hayo Man United waa laga yeeraya oo kaboorkiisa la jarjaray in lagu dhawaaqo in baa kaadhay markaas waxay aad u deydeysaa way xiiseynaysaa kooxda inay bedelka Cristiano Ronaldo ay ka dhigto waryaanka Napoli oo Simhen sanadkani 9 gool sii maraya ee gool dhalinta Serie A hogaaminaya waliba kooxda Napoli Victor Sare in laga soo dejin lahayd sanadkii laga yaabay yahay gool dhaliyaheedana waa Simhen oo 9 gool Serie A sii maraya waa ninka hogaaminaya Man United ayaa lagu soo waramayaa ninkan aad u xiiseynayso inay doonayso inay ka dhigto bedelka muddada dheer ee Cristiano Ronaldo waxaan la filayaa in Ronaldo aba dhawaan lagu dhawaaqi doono ninkani January kuma soo laabanayo Carrington inaad ku aragtaa waa habeenkii xalay haatigi wala caynaya waay boorkiisa waa la jaray talaabooyinkii waa labada ninka Ronaldo in Man United dib uga aragto Carrington tababar ku qaato warkaasi ma jiri doono halka Ronaldo waa laga ceyrin doonaa warkeena ciyaaruhu waa naga saaxiibayaal intaynu kulmi doono warkeena kale والسلام عليكم.